السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي أنا قالي كسور دبادة مركلة يوتيوب جنال كان أسد دارو جنال وحمانتا يدسو دياريي حكمة قيمة بدن xigmaddu waa awoodda uu qofku ku fikiro isaga oo ka faa'iideysanaya aqoonta iyo khibradda nololeed ee uu leeyahay. Tilmaanta dhabta ah ee waxgaradka ma ahan aqoonta ee waa xigmadda. Xigmadyahankuna waa qofka guushana wax ka barta, guuldaraduna wax ka barta, kama uu cabsado inuu wax isku dayo, waayo kama uu cabsado inuu fashilmo. Xigmaddu waa awoodda laga helo aragtida ugu wanaagsan ee lagu gaari karo yoolasha wanaagsan qofku leeyahay kuwooda ugu sareeya isaga oo bixinaya qarashka ugu yar ka soo khibradda nolosha dugsiyada. Xigmadda waa buugaagta aad akhriso iyo dadka aad la kulanto. Xigmadyahankuna ma sheego waxa uu yaqaano, jaahilkuna waxa uu sheegaa wax uusan aqoon. Ha ka daalin inaad isweydiiso waxa aad nolosha ka doonayso, iyada ayaad ka dhaxelaysaa xigmadda aad ku guulaysanayso. Weligaa ha isweydiinin qof kale wuxuu nolosha ka doonayo, waayo wax xigmad ah oo aad ka helayso ma jirto. Oraha ayaa jirta oo dhahaysa qofka uu caqligiisu buuxsamo hadalkiisa ayaa yaraada, qofka uu hadalku ku batana caqligiisa ayaa yaraada. Xigmadyahanku waa qofka afkiisa xira inta aynan dadku dhegaha ka xiran, waa qofka dhegihiisa fura inta aynan dadka afkooda u furin. Jaahilku wuxuu isu maleeyaa inuu yahay xigmadyahan, xigmadyahankuna wuxuu ogsoon yahay inuu yahay mid wax badan yaqaana. Xigmadyahanku uma ooyo fashilaadda ku dhacday, ee wixii uu fashilaaddu ay bartay ayuu hub ka dhigtaa. Isagu wuxuu garanayaa caqabadaha inay nolosha ka dhigaan mid xiiso badan, farsamooyinka looga gudbana inay nolosha ka dhigaan mid macno badan leh. Sida ay da'du u kasbato khibradda ayaa caqliguna u kasbadaa xigmadda. Xigmadda dhabta ah waxay tahay inaad kala ogaato waxa aad taqaan iyo waxa aadan aqoon. Haddii jirku uu ku qurxoon yahay caafimaad qabka, naftu waxay ku qurxoon tahay xigmad qabka. Xigmadyahanku wuxuu garanayaa inuu marar badan nolosha lagu kufo, laakiin muddo gaaban loo ahaanayo.